waayahay habeen wanaagsan dhageystayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan waa khamiis 5 bisha 7 ee luulyo 2018 u diyaar garooba barnaamijkii dabagalka wararka habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale dunida meel walba inaga maqlaysaan anagoo idin jeceliyo idinkoo noo hamuun qaba u diyaar garooba dhageysiga iyo la socodka barnaamijka dabagalka wararka waa khamiis 5 bisha 7 2018 barnaamijkeenana waxaynu ku eegi doonaa arrin uguba oo ku soo korortay siyaasadda Soomaaliya mar haddii barnaamijka lagu soo bandhigo siyaasadaha Soomaaliya iyo Somaliland maxaa cusub xilligan madaxweyne farmaajo wakiil ayuu Nairobi degdeg ugu soo diray isla markaana wakiilka madaxweynaha Soomaaliya ee soo dhaweynta Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax wuxuu noqday Faarax Macalin oo madaxweyne farmaajo uu soo xil saaray si aynan xiriir u yeelan xildhibaanada mucaaradka ku ah farmaajo iyo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax Faarax Macalin ku guuleystay inuu kala dhex galo Axmed Macalin Fiqi iyo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaad maqli doontaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta caawa ay ka dhacday arrin aynan dadka Soomaaliyeed la socon laakiin warbaahinta kuwada ugu indhaha dheer ay si weyn indhaha ugu hayeen waxaad maqli doontaan faahfaahin dheer iyo sheeko farmaajo uu maanta ka sameeyay xilligan ka sameeyay ama caawa ka sameeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta lagu soo dhaweynayay halgamaaga Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax maxay tahay danta Cabdikariin Muuse iyo farmaajo waqtigan isaga dhex jirtay isla markaana uu farmaajo uga baqdin qabo inay wada hadlaan xildhibaanada mucaaradka ku ah iyo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaad caawa maqli doontaan sidoo kale odayaal iyo waliba siyaasiyiin oo ku jiro Faarax Macalin oo doonaya inay heshiisiyaan farmaajo iyo waliba Qalbi Dhagax waxaad maqli doontaan qorshaha iyo qaabka loo heshiisinayo Qalbi Dhagax iyo waliba madaxweyne farmaajo kulanka ay labadooda ku wada heshiinayaan odayaasha iyo Faarax Macalin wuxuu doonayaa kulanka inuu ka dhaco magaalada Kismaayo oo ah meesha labaad oo Cabdikariin Muuse uu tagi doono hadduu alla idmo markuu Nairobi ka tago waxa uu toos u tagi doonaa magaalada ay qorsheynayaan odayaasha iyo siyaasiyiinta Faarax Macalin oo ku jiro in lagu heshiisiyo madaxweyne farmaajo iyo waliba Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax qaabka heshiisiintaasi u dhacayso iyo sida la doonayo in loo qorsheeyo ayaad caawa maqli doontaan hadduu alla idmo intuu barnaamijku socdo waqti wacan ayaan ku rajeynayaa aragtidaadana waad dhiiban doontaa qodob dooda oo aad u xiiso badan caawa waan idin hayaa waana mar kale iyo barnaamijkii dabagalka wararka caawa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya halgamaaga Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyadoo oo garoonka ay kaga hortageen shacab aad u fara badan iyo waliba siyaasiyiin ay qayb ka ahayeen xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo waliba magaalada Nairobi caawa aad looga dareemay mana dhicin mas'uul sidan oo kale loogu soo dhaweeyo geeska Afrika haba ugu badnaatay magaalada Nairobi oo ay tagi jireen siyaasiyiinta dawladda federaalka haddii dawladda lagu majaxaabinayo iyo haddii taageero la doonayaba waxa la tagi jiray magaalada Nairobi caawa tan dhacday weligeed ma dhicin Cabdikariin Muuse waxa uu dhammaan shacabka magaalada Nairobi ku soo jiitay gacmo furan iyo waliba niyad sami saafi ah caawa garoonka diyaaradaha waxa isugu tagay shacab fara badan oo ka koobnaa shanta Soomaaliya iyadoo shacabkaasna uu ku jiray siyaasiga Faarax Macalin oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalka Kenya haddaba madaxweyne farmaajo ayuu wakiil ka ahaa Faarax Macalin markii uu tagayay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta iyadoo halkaasi uu doonayay inuu ka fuliyo qorshihii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu soo degay isla markaana la doonayay in lagu kala ilaaliyo xildhibaanada mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya iyo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax in ay wada kulmaan Faarax Macalin ulajeedkiisa ayaan gordhow faahfaahin doonaaye balse marka hore aan ku hormaro qaabkii Qalbi Dhagax loo keenay Nairobi iyo qaabka loo soo dhaweeyay
caawa saacadihii hore iyo waliba gelinkii dambe ee maanta markii ay soo gaadhay cabdikariin muuse inuu soo aadayo Kenya waxaan baaritaan ku sameeyay arrin xan ahaan lagu xamanayay cabdikariin muuse qalbi dhagax cabdikariin muuse waxa lagu xamanayay in baasaboorka Ethiopia uu ku imaan doono Kenya ama uu safarada ku fuli doono isagoo isticmaalaya baasaboorka Ethiopia haddaba cabdikariin muuse diyaaradii ka soo qaaday Addis Ababa keentay Nairobi baasaboor nuucee ah ayuu watay maxaa ka jira baasaboorkiisu inuu Ethiopian ahaa sidoo kale waxaan baaray oo ilaa caawa aan ku mashquulsanaa cabdikariin muuse mar hadduu ka soo duulayo Addis Ababa imaanayo Nairobi dokumentiga uu isticmaalayay nasiib wanaag caawa waxaan helay xog dhammaystiran oo ku aadan cabdikariin muuse dokumentiga uu isticmaalayo oo dadka intiisa badan ay ku xaman jireen in cabdikariin muuse waqtigan uu wato baasaboor diblomaatiga ama baasaboor Ethiopian nooc walba ha noqdee laakiin arrintii waa beenooday cabdikariin muuse waxa uu dawladda Ethiopia ka diiday baasaboor diblomaatiga oo loogu talagalay shaqaalaha dawladda Ethiopia wuxuuna yiri suurtagal ma aha inaan baasaboorkaasi qaato waxaan caawa ogaaday shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagi karaya baasaboorka cabdikariin muuse ee Ethiopianka marka hore Abiy Ahmed oo ugu talagalay inuu diiday maalmo ka hor isla markaana uu yiri markii aan safrayo waxaad ii ogolaataa inaan ku safro dokumenti aniga ii gaara mar haddaan ahay maxbuus adiga aad cafis u samaysay cabdikariin muuse ma isticmaaleen haba yaraatee baasaboorka Ethiopia waxaana loo sameeyay warqad cabdikariin muuse u ogolaanaysa inuu garoonka ka dhoofo warqadaasi naqshad ahaan Ethiopia way ku salaysan tahay laakiin ma laha calaamadaha sida calanka Ethiopia oo cabdikariin muuse uu gaaray heer oo xitaa diido tembraha loogu talagalay warqada in lagu asteeyo ama meel kamid ah warqada uu ku soo dhoofayay ay ka muuqato calanka Ethiopia ma jirto difaacan difaacayo waa xaqiiq hubaala oo aan idinka hubo isla markaana bulshada Soomaaliyeed ee caawa si weyn ugu faraxday markii la arkay Nairobi markuu ka soo degayay isagoo wato warqad kaliya Kenya inta badan waxa lagu yaqaanaa garoonkeedu inuu yahay garoon aad u dhib badan hase yeeshee waxa arrintaasi xabadka u dhigtay siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo waliba shacab aad u fara badan oo cabdikariin muuse ka ballan qaaday diyaaraddu markay Jomo Kenyatta ay timaado in dawladda Kenya laga dhaadhici doono cabdikariin inuusan ahayn qof caadi ah isla markaana uu yahay qof geesiya bulshada Soomaaliyeedna si weyn u soo jiitay cabdikariin oo wata warqad lagu asteeyay oo kaliya inuu ka duuli karo garoonka ayuu ka soo degay Jomo Kenyatta isla markaana isagoo bila baasaboora ayuu shacabka Soomaaliyeed soo dhaweeyay arrintii ugu yaabka badnayd ee caawa intii aan baarayay safarkiisa iga hor muuqatay waxay ahayd in dadku idil ay shaki ka qabeen cabdikariin muuse inuu soo degi doono isagoo wato baasaboorka Ethiopia qaybta shaqaalaha ama hadduu diplomatic noqon lahaa iyo haddii kale laakiin dadkoo dhan waxay wada ilimeeyeen markii la arkay cabdikariin muuse oo wato warqad qalayla isla markaana ay ku qoran tahay oo kaliya inuu yahay cafis ka dhoofi karo Ethiopia inta kadib waa la wada sheekaystay oo waad aragteen oo sawirradii waad aragteen arrin hoose ayaa jirta marka meeshaas waxaan uga baxayaa cabdikariin muuse inuusan baasaboor Ethiopian ku soo dhoofin safarka kan xigana waan idin hayaa caawa meesha uu tagi doono safarkaasi wuxuu isticmaali doonaan idin hayaa dawladda South Africa ayaa kamid ahay dawladaha uu imaan doona laakiin South Africa waa diiday hadduusan qaadan ay tiri South Africa waa magaalada saddexaad uu tagi doona ayay ahayd South Africa laakiin masti waxay tiri South Africa waa inuu wataa baasaboorada Ethiopia ama Kenya waxa suurtagal marka cabdikariin muuse inuu qaato baasaboorka Kenya dawladda South Africa waxay tiri baasaboor Ethiopia kan Kenya kaliya ayaanu ku soo dhaweynaynaa safarka Kenya laakiin warqad kaliya ayuu ku yimid way dhici doontaa haddii xal kale aan la helin laakiin maxaa diidaya baasaboorka Soomaaliga waa qayb kamid ah su'aalaha la isweydiinayo cabdikariin muuse haddii uu si dhaba u safri karo cabdikariin muuse qalbi dhagax dawladdii baasaboorka Soomaaliga uu ka qaadan lahaa waa dawladdii ku tilmaamtay inuu yahay argagixiye sida darteed xafiisyada dawladda gaar ahaan safaaradaha Kenya Ethiopia iyo waliba Uganda intaba cabdikariin muuse waqtigan uma qalmo sida ay xaqiijinayaan dadka ku dhadhow inuu waqtigan safaarad Soomaaliyeed oo tago
ama dowladda Soomaaliya oo ka dalbada maadaama isaga iyo dowladaba xurguf ay ka dhaxayso waxa jira marka hadal nuxnuxa oo caawa aan idinkaga hayo qaybta baasaboorka laakiin Faarax Macalin ayaan ku hormaraya Faarax Macalin wuxuu ahaa wakiil Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka socday caawa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta buu tagay halka wuxuu kamid ahaa dadkii soo dhaweeyay Faarax Macalin marka sakiin yar ayuu hoos ka watay sakiintaas wax kala ma aha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawa waxa uu ku hoyanaa waxay tahay kalsoonida Faarax Macalin laakiin caawa hurdo uma taalo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo si aan wali loo arag ayaa horta marka hore qalbi dhagax loo soo dhaweeyay wajiga labaad qalbi dhagax wuxuu kasbaday shacabka Soomaaliyeed ee degan Kenya waxayna Soomaalidu og yihiin dalka Soomaaliya marka laga soo tago dalka labaad ee Afrika Soomaalidu ugu badan tahay waa Kenya dalka saddexaadna waa Koonfur Afrika haddii Cabdikariin Muuse uu dalkii labaad ee Soomaaliyeed ee inta badan shacab Soomaaliyeed oo fara badan ay ku nool yihiin caawa sida looga soo dhaweeyay madaxtooyada Villa Soomaaliya caadi ma ahayn waxaana muuqanaya nuxnux iyo orod aad u fara badan oo lagu muujinayo Cabdikariin in la kala dhantaalo taageerayaashiisa qaar kamida waxa la isku dayay in suuqa la geliyo arrintii baasaboorka oo la yiri ninka aad soo dhaweynaysaan haddaad Kenya ama shacabka Kenya jooga aad tihiin waa nin wata baasaboorka diblomaatiga Ethiopia war nin Ethiopian aad soo dhaweynaysan arrintu laakiin waxay beenowday markii uu salaanta qaadayay in warqadiiba ay ka soo horreysay Cabdikariin Muuse oo shacabka tusay si nuxnuxdii halka ay uga baxdo Faarax Macalin ayaan markaan leeyahay Faarax Macalin wakiil wareed buu ahaa wuxuu ka socday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawa wuxuu aad uga baqdin qabay inay wada kulmaan wada hadlaan xiriir wada yeeshaan Axmed Macalin Fiqi iyo xulafo xildhibaano ah oo siyaasadda Farmaajo diidan iyo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax nasiib xumo iyo nasiib wanaag labadaba Faarax Macalin way ku dhacday nasiib xumo ku dhacday oo ninkii qalbi dhagax ahaa magacyada xildhibaanada caawiyay korbuba ka xifdiyay waa u xifdisanaa wuxuu Cabdikariin Muuse og yahay inta xildhibaan ee u dooday iyo inta xildhibaan ee indhaha ka daawatay iyo inta xildhibaan ee yiri Ethiopian waaye ninkan qalbi dhagax la leeyahay xildhibaanadii oo dhan waa xifdiyay waxa uu soo baxay marka tirada xildhibaanada u dooday oo Soomaalinimadiisii difaacayay iyagoo aan wax lacaga ka rabin iyagoo aan wax wajiyo hore oonan ka dhaxayn sida darteed Faarax Macalin waxa la yiri أحمد معلن فقي يحلبان هذا الله صعدة لابا أنت أصبح احترام بحقيقة كل يهين إيسو داي فارح ماشى سوا كوفا الشلمي وأنا كلا علوي نمكي أضياش أها واحد جت مركز كلن كي نحمر أحمد معلن فقي يولبا qalbi dhagax kadib Faarax Macalin wuxuu isku taxallujiyay inuu arinta soo fududeeyo isla markaana uu yiraahdo Kenya maadaama aan codsi weydiisanay way nagu adag tahay ninkan qalbi dhagax la yiraahdo dokumenti dhaba ma wato sida darteed hala soo fududeeyo laakiin arintaas waxa diiday siyaasiyiin ku beel ah Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo Kenya muddo dheer deganaa isla markaana cadeeyay inuu Cabdikariin free yahay dadkana waqti uu doono uu la qaadan karo Faarax Macalin marka andhooftu dib u liqay kadib waxa wada hadalkoodii Cabdikariin Muuse qalbi iyo xildhibaanada mucaaradkaba ay gaareen heerkii ugu weynaa aad baa la isugu soo dhaweeyay qalbigooda wuxuu ahaa kuwa aad isugu soo dhawaada nasiib xumo ayaa dhacday waayo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax wuxuu sheegay arinta siyaasadda isaga iyo xildhibaanada dhexmaraya inuu ka hormari doono qancinta shacabka wuxuuna ku yiri Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaanadii la socday qalbigiina qayr u sheega anagu waynu isku wada dambeynaa anagu halkaas waxaanu ka soo xiganay dad ku dhaw kulankii dhexmaray xildhibaanada iyo waliba Cabdikariin Muuse qalbi dhagax laakiin wuxuu codsaday xildhibaanada iyo waliba qalbi dhagax inay kulmi doonaan maalmo kadib maadaama uu marka hore uu doonayo inuu qanciyo shacabka Soomaaliyeed marka Faarax Macalin guuldarra meeshaas ka raacday caawana waxa loo gudbiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in qalbi dhagax iyo waliba Axmed Macalin Fiqi ay wada hadleen balan la wada galay sida darteedna ay ku adkaatay Faarax Macalin inuu kala ilaaliyo xildhibaanada mucaaradka ku ah siyaasad ahaan diidan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawa garoonka Jomo Kenyatta ka hortagay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sheekadu inta kaliya maaha isla caawa intii soo dhaweynta qalbi dhagax lagu jiray waxa dhinac ordayay odayaal iyo siyaasiyiin Faarax Macalin oo ku jiro oo waday qorshe ah in la damiyo colaadda u dhaxaysa qalbi dhagax iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
odayaashani qaab qabiilay u abaabulan yihiin ma jirto odayaashu inay shanta Soomaaliya ma ahayn Cabdikariin Muuse miyuu ogolaaday odayaashaasi ma dhageystay caawa ma loo gudbiyay waan idin hayaa laakiin marka hore odayaashan sharaxaad ka bixinaya odayaashani waxay ahaayeen kuwo u abaabulan qaab qabiil oo beesha daarood oo dhan ah waxaana la rabaa ama la doonayaa ilaa iyo xilligan way socotaa in Cabdikariin Muuse laga dhaadhiciyo barnaamijkan in lagu rogo xukuumadda federaalka Soomaaliya xukuumadda lagu rogo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dhowr arinta loo kala dhigo marka koowaad in marka hore qalbi dhagax ogolaado in Farmaajo ay kulmaan magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland oo ah meesha labaad oo qalbi dhagax booqan doono Nairobi markuu ka tago Jubbaland buu tagayaa Kismaayo tagi doona marka odayaashu waxa la yiri Kismaayo markii la tago in loo yeero Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeshaasna sheekada laga dhigo ilaa iyo waliba boqorka beelaha daarood baa la keenayaa Kismaayo lagu wada kulmaa dabkana waxa laga dhigayaa gaf ay geysteen xukuumadda federaalka golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa arinta dusha loo saaraya Maxamed Cabdullaahi Farmaajona Kismaayo tagaya qalbi dhagax iyo odayaasha oo boqorka beelaha daarood uu kamid yahayna Kismaayo loo wada socdaa Nairobi kadibna Kismaayo la tagaya laakiin arintaasi farba ku godan markii loo gudbiyay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax wuxuu sheegay haba yaraatee inuusan si fudud ugu jawaabi kareynin odayaashaas laakiin ay mahadsan yihiin wuxuu yiri marka hore waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee u oomanayd u rafaadsanayd aniga xaaladeyda inaan marka hore u sharaxo lagamana yaabo ayuu yiri Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo aan idin xaqiijinayo rucleynta odayaashu ay wadaan fashilkoodu uu yahay wuxuu yiri ilaa aan ka qanciyo shacabkii shalay ooynayay qayla dhaaminayay lagama yaabo arintaydu inay wada hadal gasho aadi fahma shacabka qayla dhaamiyay shacabka ila muddo qayla dhaaminayay anigoonan arintayda u sharaxin ma laga yaabo arinta in hoos loo xalliyo dawladda federaalka iyo Farmaajo oo waliba si gooniya loo wada bal fiiriye dawlad la heshiin maaha Muqdisho tag maaha fil Soomaaliya tag maaha ninkii odaga ah waxa la yiri xitaa wax hoos oo la ballan qaado xataa waa jiraan laakiin isagii ayaa rajagta keenay oo yiri suurtagal maaha anigoo shacabkayga u sharaxin xaaladda dhibaatadii soo martay oo aan waqti la qaadan inaan wada hadal iyo saamixid iyo isku soo dhawaasho laga dhigo laakiin waxa lagu yiri waxaan ku wadno waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliya madaxweynaha Soomaaliya inaad wada hadashaan arinta la xalliyo loo xalliyo si foolka foola arintana laga dhigo mid aynan beeluhu isku dhicin uqdada u dhaxaysa labada beelood ee Farmaajo iyo waliba qalbi dhagaxna aynan xumaan laakiin qalbi dhagax wuxuu yiri aniga ogaadeen kaliya imaysan gurman waxa ii gurmaday shanta Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu abaal u hayo shanta Soomaaliya oo habeen iyo maalinba u ilmeenaysay xaaladu inta kaliya maaha markii laga saamax waayay oo diiday qalbi dhagax in arinta Farmaajo isaga hoos loo dhaqo kadib sheekadii waa la rogay waxa la yiri qalbi dhagaxow waxaan ka rabnaa inaad horta marka koowaad ku soo dhawaato dawladda federaalka waa dawladdaadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku ogol yahay ugu yaraan inaad noqoto madaxweynaha Jubbaland ama ugu yaraan in aynu odayaal ahaan intaan isku noqono arintan oo nalaf iyo waliba mabda'eeda aynu bedelo kadibna lagu geeyo jigjigo laakiin inta Cabdikariin Muuse waxa jawaabo sax kama aysan kulmin odayaashii iyo Faarax Macallin oo kulankii Nairobi maanta ama caawa markii garoonka yimid kadib arin hoose oo daboolan bay ahayd waxaana kun jeer ugu mahad celinaya dadka xaqiijinta iyo wararkaasiba daqiiqad igula socodsiinaya wayna mahadsan yihiin waxaan rabaa marka ugu dambeyn doodeena ku salaysan xaaladda caawa taagan qof walbina oo aragtidiisa uu ka dhiibanayo qof kasta oo na dhageysanayana oo xor u yahay inuu aragtidiisa uu ka dhiibto waqtigan adigoo waliba mahadsan aragtidaadana xor u ah fadlan dulka dhagahaaga iyo dareemahaaga nasiib marka koowaad dooda waxaad uga qayb gali kartaa qadka telefoonka waliba feebarkaad uga qayb gali doontaa lambarkana saddexda mas'uul ee hortiina yaala ama hortiina aad ka arkaysaan ayay ku dul qoran yahay sidaa darteed aragtidaada xor baad u tahay qalbi dhagax iyo Farmaajo inta badan dadka Soomaaliyeed laba darajo u kala leeyihiin mid waa madaxweynaha Soomaaliya ninna waa nin halgamaa ah oo muddo dheer ummadda Soomaaliyeed ay si weyn u yaqaaneen warbaahintuna si siman ay xaqooda banaanka u keenaysaa ma jirto cid aan anagu uga fayno xaqiiq taagan ayaa waqtigan ummadda Soomaaliyeed la wadaagi kareena waayahay waxaan rabaa caawa markii inaan ogaado ummadda Soomaaliyeedna ay aragtidooda ka dhiibtaan haddii Cabdikariin Muuse qalbi dhagax
uu dowladda federaalka Soomaaliya ka diido in hoos loo wada xalliyo arrintii naxdinta murugada lahayd ee isagoo jeebadaysan magaalada Muqdisho dowladda federaalka oo farmaajo madaxweyne ka yahay ugu wareejiyeen Ethiopia halkaasi maxaa ku jaban waxaan rabaa diidmada kaliya inaynu falanqeyno qalbi dhagax inuu ka diido dowladda federaalka Soomaaliya wada hadal oo yiraahdo marka koowaad runtan shacabka u sheegayna waxaan leeyahay xaqiiqdan sheega inuu yiraahdo adigu ma raacsan tahay cabdikariin muuse qalbi dhagax inuu yiraahdo dowladda lama heshiinayo marka koowaad shacabka runta loo sheegaya shacabka noo wada ballana oo waxa qof walba uu tagi doonaa inuu shacabka hor istaago runta u sheego adigu sidaad u aragtaa in aan la wada hadal haba yaraatee una dhex marin dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo qalbi dhagax isla markaana runta loo sheegay shacabka adigu sidaad u aragtaa mar saddexaad dhowr dhinac baan hadalka ka dhigayaa si ay dadka Soomaaliyeed ay aad noo fahmaan inaan la wada hadlin oo aysan wada hadal farmaajo iyo waliba qalbi dhagax oo arrinta runta loo sheegay shacabka Soomaaliyeed farmaajona uu dadka hortooda raaligelin ka bixiyo qalbi dhagaxna uu runta dadka hortooda ka sheego oo cadeeyo dowladda doorka ay ku lahayd in Ethiopia loo gacan geliyo adigu sidaad u aragtaa hadday kula xun tahay ii sheeg hadday kula wanaagsan tahayna ii sheeg mar saddexaad ayaan ku celinayaa in aan la wada hadal oo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa iyo ninka la yiraahdo cabdikariin muuse qalbi dhagax aysan wada hadal lagu kala baxo shacabka hortiisa madaxweynahana uu raaligelin ka bixiyo shacabka hadduu qaladku isagu raaco iyo dowladdiisaba iyo qalbi dhagaxna inuu runta ummadda u sheego sida loo jeebadeeyay qaabka loola dhaqmana oo bulshada uu la wadaago saaxiibow ama saaxiibay meel walba dunida aad ka joogtaan sidee baad u aragtaan qadka telefoonka iyo dhageystayaasha ayaan markana siinaya waadna mahadsantihiin qof walibana xaq waxa uu leeyahay inuu aragtidiisa u dhiibto salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow aragtidaada in runta la sheego cabdikariin muuse qalbi dhagaxna uu shacabka hor yimaado xaqiiqda la sheego farmaajo iyo dowladdiisana ay shacabka hor yimaadaan oo ay runta sheegaan adigu sidaad u aragtaa والله waxaan u arkaa sida uu ninkan jecel yahay inuu sameeyo adigu sidaad u aragtaa in sida la sameeyo siduu jecel yahay meel ii dhig sida ay dowladda jeceshahay meel ii dhig inaanan waxba hoos loo dhaqin oo aan hoos loo wada hadal oo runta la sheego qof kastana oo kaamirada horteeda uu yimaado runta uu sheego dowladana siday falka u sameysay indhaha laga saaro qalbi dhagaxna arrintii lagu sameeyo oo dadka hortooda ka sheego oo aanan hoos loo xallin sideed u aragtaa adiga أنا waxaan u arkaa in arrinta si horta wax walba dadka kama qarsoon oo ninkan waa tii la qabtay oo usada uu sheegay in indhaha laga qabtay in laga xiray isagoo 3 berina lagu hayay meesha la yiraahdo gaalkacyo 3 berina 3 maalmoodna lagu hayay Muqdisho marka intaas caalamka dhan waa og yihiin in la xiray waa la og yahay in loo dhiibay Ethiopia waa la og yahay inuu 10 bilood xirnaa waa la og yahay marka hadda ma waxaad leedahay in la qariyaa wanaagsan mase in shacabka mar labaad inta la hor yimaado dowladuna ay sheegto dambiga ay qalbi dhagax ka gashay qalbi dhagaxana uu sheego dambiga laga galay intaa iyo in la qariyo adigu labadaas sideed u aragtaa والله هذا wax qarsoon ma jiro wax la qariyo ma jiraan ninkan waa la xiray waa la dhiibay wuu xirnaa walaal horta aad ii dhageyso in la qariyo ama in la wada hor yimaado hadda qalbi dhagax kaliya hadlay dowladdu way aamusan tahay dowladdu wali kama aysan hadlin waxa war noogu war dambeysay iyadoo leh dowladda cabdikariin muuse waa argagixiye hadda in runta la sheego oo qof walba uu shacabka hor yimaado dowladuna ay ka garbaxdo oo qalbi dhagax la yiraahdo Allah ilaahi dambigaasaan ka galnay qalbi dhagaxna uu cadeeyo dambiga laga galay adigu taa in la sheego oo sida la sameeyo ma raacsan tahay mise wad ka soo horjeedaa ما هو رعسنها إن لا رالي جليو أو la yiraahdo waa kaa qaldamay waa sababta waaba laga qaldamay in la sheego way tahay oo la qanciyo hadduu taasi ay wax hagaajinayso
waayahay in runta la sheego adigu waad raacday waxaa tiri in madaxweyne farmaajo iyo dowladiisana ay ninkaa raaligeliyaan ilaan dowladii Ethiopia way soo raaligelisay oo isagoo qurux badan baa villa VIP da garoonka Addis Ababa laga soo dhoofiyay shacabkii Soomaaliyeed si isku mid ah ayay u soo dhaweeyeen Nairobi waxaa tiri in runta la sheego way wanaagsan tahay waayahay bal haddii marka dowladina ay raaligelin bixiso qalbi dhagaxna uu runta dadka u sheego oo cadeeyo dowladdu in ay ku lug leedahay arrintiisa qalbi dhagax ee dhibitaanka Ethiopia hadduu ahaado taliyihii nabad sugidda haddii golihii wasiirada argagixiyo ku tilmaamay ee ahaadaanba in halkaa lagu kala baxo dadka qaarkii qalad bay u arki karaan marka in runta la sheego qaladka ku jira ka qanci dadka ku dhageysanaya qaladka laga galay ummadoo dhan waa aragta qalad la qarin karaa ma jirto oo ثانيا iyaga ani waxaan leeyahay xitaa isaga naftirkiisa qalad uu leeyahay wuxuu qalad ku leeyahay wadankan Soomaaliya hadii aan runta sheegno maalintii dawladii dhexe ee 1990kii ay dhacday dawlad la sheegay ilaa hadda oo run ah oo quwadeedii jirtay ma jirto wadankan waa wadan la iska haysto marka wuxuu qalad ku leeyahay inuu wadan la haysto ciidamadii Ethiopia ay joogaan oo inuu yimaado ma ahayn maadaama uu jabhada ka tirsanaa taa uu ku qalday sababtoo raggii ka horeeyay waa meel walba laga dhiibay marka inuu meesha yimaado ma bay ahayn markii hore inuu meelaha ku amaan helay haday Eritrea haday dowladihii ka horeeyay farmaajo uu joogay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax dowladii Sheekh Shariif uu joogay dowladii Xasan Sheekh uu joogay dowladda hal sano iyo bar joogta kaliya ayaa dhibaatadan uu kala kulmay marka haduuba 4 sano iyo 2 sano ee ka horeysaba dowladihii ka jira Soomaaliya oo Cabdikariin Muuse Muqdisho iyo gobolada koonfureed baa ku noolaa dowladan ayaa falka u geysatay marka lama oran karo Cabdikariin muxuu soo doonay shalay uu ku noolaa waa uu ku dhaqnaa laakiin dowladan ayaa gacanta ku dhigtay marka adiga ugu dambayn runta in la sheego ayaad ku qanacsan tahay Soomaaliya waxa way jawaabta aan ku sii dowladan maxay u dhiibtay dowladihii kale u dhiibi waayeen waxa sababtu waxay noqon kartaa aan isleeyahay kama xumo dowladihii hore oo cadaawo gooniya uma qabto ayaan leeyahay isaga nafsadiisa ama dadka kale oo inalafta qadarkii ayaa kulmiyay qadar baa jira meeshan inaan ogaada ah qadar inuu jiro waqtigii la qaban lahaa ayaa ku beegmay dowladan mar inay timid ana waxaan ku tanin lahaa kulli ninkan qalbi dhagax runtii idaacadaha aad baa loo waaweynay macna waxa way qaladaad fara badan waa dhacaan qaladaad ka badan baa dhacay ka weyn in ma garanayo waxyaabaha sababta keenaysa in maaragtay ninkan saa loo weynay waan ka xumahay waa nin Soomaaliyeed waa nin yani halgama ah laakiin waxa qadiyada ka badan oo waxa jira u baahan in la sheego dhiig baa maalin walba ku daadanaya magaalooyinka Muqdisho waxay tiri gabadhaasi dhiig fara badan baa daata waxaan aad ula yaabanahay tiri qaabka loo booboonayo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo ay u aragto inuusan aad uga doonayn shacabka intiisa kale waxayna sheegtay iyadoo taa ay ku difaacayso dowladda federaalka waxay tiri qadar baa timid ficilka iyo qadartana waxay u kala saartay laba dhinac waxay cadeysay dowladihii hore inuu bad qabay laakiin dowladan qatarto qadarku uu ku soo food lahaaday hase yeeshee waxay meesha ka saartay sababta dowladani ay u soo qabatay inay u aragto wax aan aad uga doonayn waxyaabaha ka dhaca dalka Soomaaliya waxayna codsanaysaa gabadhaasi inaan Cabdikariin Muuse la booboonin mahadsanid wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii fakarka dhageystaha oo aynu ku dabagalno xaqiiqda iyo wararka ka jira geyiga Soomaaliya dowladdu inay runta sheegto Cabdikariin Muuse qalbi dhagaxna uu runta sheego lagu kala baxo shacabka hortiisa sideed u aragtaa salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سودو إن شعب كورتي سلوكو كلا بحو دولة فرماجو runta ay sheegto qaladka qalbi dhagax ay ka gashana ay banaanka keento qalbi dhagaxna oo ummadda Soomaaliyeed u sheego sirtii ugu weyneyd ah in dawladda u gacan geliso Ethiopia sheekada marka laga dhigo markii shacabka runta loo sheegay kadib inay wada hadlaan adigu sideed u aragtaa arinta والله هرتر وحكم قضاء أرنتاس إن عدي مر والبنا أرن هرق جرت وهرق عدد إن كان أيجي سي معنا حاجة جريمة أو جتوبة يقولي بين واقرته لكن سواها آد وعند عنا يا إن دت كمان تحت قبيل كقرادنا يا مجا
dowladda qabiilkeena waayo yani waxa loo dhibin camal ah raadinaya inay qalbi dhagax ka dhaadhiciyaan arrinkaas ayaa aad iyo aad macnaha ugu dhaleecanayo oo ugu xumahay waayahay taa waa usoo noqonaynaa waxaad tiri in runta la sheego aad baan usoo dhaweynayaa sababta aan hadda u leenahay runta hala sheego waxay tahay waa la yiri iyo dowladdu sidaa bay hadalka u dhigtay iyo dowladdu waa diyaar iyo af soomaali hore ayaa la hayay arrinta in dadka laga dhaadhiciyo wixii ay dowladda qarinaysay bannaanka ay keento waad soo dhaweynayaa ayaa tiri marka sidee baad isleedahay waa lagu qanci karayaa runta aad rabto oo aad isleedahay qalbi dhagaxna ha sheego dowladdana ha sheegto oo ha lagu kala baxo bal ii xasuusi hal iyo labo midaan kuu sheegaa marka waxa meesha yaalla waxay tahay dowladda horta marnimo ma qiranayso arrinka aan ku leeyahay waa ku qanacsanahay sababta ay ku imaato waxay tahay dowladda marnimo ma qiranayso oo ma dhahayso dambigaas anigaa ka dambeynay haddii taas ay caddeeyaan shacabka soomaaliyeedna waa inta ay raadinayeen afkooda inay ka maqlaan waa afkii ay shalay ku cambaareeyeen ee nimankaas xornimo doonka ahana ee macnaha cambaarka uga dhigeen ay dhaheen waa argagixiso haddii inay qarinayaan aniga ilama ahan laakiin midda hadda la raadinaya ragga sida mas-uuliyiinta magacawday ninka la dhahayo faarax macalin oo u haasin jira awal in uu yahay nin soomaali weyn macnaha matalo oo udub dhaxaad ah oo wayahan dambe xaar ka wareegay sida u hadlaaya qaab u dhaqmaayo oo qabiilka isku bedelay wax aad loogu xumaado waayo oo ninka soomaalinimada ay ku jirtana aad u weerarqso waayahay adigu waxaad tiri marka dowladdu ma sheegan karto oo way diidan tahay oo kuma dhiiri karto inay tiraahdo ama ay raali geliso cabdikariin muuse qalbi dhagax maxay ka baqaysaa waxay ka baqaysaa dee hadday qirtaan dhibka ay shala geysteen oo annaga shacabka haddaan nahay soomaaliyeedna aan ka dharagsannahay inay qirtaan kartideedu ma lahan hadday qirtaan waxaa waaye waa inay baneeyaan معناها مصيرك الصومالي بدنا مش كتجمع واي. ده شعبك أيقو قرطان شعبك معناها وحي أنت سكدم بينا وركو سيدك يستاني. أنا وما أركو ده معناها إني يجين مصلحة الصومالي ودقن نقول waayahay farax macalin hadda caawa waxa uu qorsheynayaa iyo odayaal qaab qabiil u abaabulan in farmaajo iyo qalbi dhagax kismaayo la isugu geeyo oo si gaar loo heshiisiyo marka maxaa ku jaban haddii si gaar loo heshiisiyo oo Soomaalida kale laga dhuunto oo meel hoose iyo daaha ka gadaal arrinta qaab qabiil loo xalliyo si loo kala badbaadiyo dadka maxaa ku jaban صح ورطة أرنتان أنا واحد بدن أيام كده السنة واحد بدن أيام أولون دولا وهراء مقلي أنتوا توبي مثل سودا أيام واحد واحد مقلي قلب دقيق اللي هو قصبة يعني مهان ده طل يمعناها وشجعنا يوضع شو إن ده هاي دولة دين الصومالية ما أنت أنا قدر كي هاي سنة هدي عيبين لكن سنين كان فكرة تبون واي سيدي أنا جاي الصومالية أنت بدن أمسين أو صوماليين أمسين واي كلام أمسين حتى كلين أنت كتمدي أنت هنا أسودين وأنا سومالوين أبصر وجبهتني ما أقربه أصل كيسنا سير تاريخ وشيء عينك من الطريق كتر سنة قيبتي جبهت جلد محمد برا أبورت لقى سلطان بشيء هي قعدوا إنه عصود وين سومالوين كان عصم تاوين هي dadka marka culeyska badan kusoo kordhinayo oo ayaamaha dhan shiraayo oo dhahay ninkan aka keena war noocaas u eg si ay ugu qancaan Soomaalidan macnaha halka dhiga wax ka maqlan oo waxaan la haleynayo معناه أقول نقدر واحد كرسو ده هوستس الجليل إنه أقول نقدر هذا بس إذا مثلا شعبك أنت كده رسالة أنت وعاد يوبان تاعي waayahay waa laga dhargayo waa la ogyahay laakiin adiga wixii ku jaban bal noo sheeg maxaa ku jaban waa ka Faarax Macalin iyo odayaal qaab qabiil u abaabulan ayaa Nairobi jooga Cabdikariin Muuse waxa laga yaabaa hadda in laga dhaadhiciyo oo arrintan inkastoo caawa diiday sida bilowga barnaamijka aan ku sheegay laakiin wali raja laga qabaa odayaasha iyo Faarax Macalinba in qaab qabiil loo fahamsiiyo in magaalada Kismaayo oo ah magaalada labaad oo qalbi dhagax tagi doono in la geeyo farmaajo qalbi dhagax iyo farmaajana qaab hoose loo xalliyo maxaa ku jaban oniyo wallahi horta hore arrinkaas aniga ma u muuqdo ma arrin macnaha oo hirgalay inuu yahay hadduu hirgalay oo qalbi dhagax laga dhahay macnaha waxay ii muuqataa qalbi dhagax rajada laga qabay dad Soomaali weyn oo aaminsan haba ahaatay dadku maanta Muqdisho oo magaceedu lagu maagay haba ahaatay in dadka boqolkiiba boqol aad u taayidsan Soomaalinimada la aaminsan mar walbana magaca Soomaaliyeed lagu dulmiyo ay yihiin waxay arrintaas u ekaanaysaa in dadka ugu badan boqolkiiba boqol oo ka niyad jabo qalbi dhagax inuu noqonayo
waxa uu yiri qalbi dhagax waa laga niyad jabi doonaa haddii uu ogolaado arrinta Faarax Macallin iyo odayaashu caawa Nairobi ay ka wadaan taasoo ah magaalada Kismaayo in farmaajo iyo qalbi dhagax ay ku wada heshiiyaan waa maasan yahay dhageystayaasii qof waliba aragtidiisa xor ayuu u yahay uuna nala wadaagi karaa naga soo wac telefoonka hortaada yaala adiga oo aragtidaada xor u noqonaya hadduu alla idmo assalaamu calaykum qadka xiga وعليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada in arrinta runta laga sheego oo qalbi dhagaxna uu runta sheego dawladda federaalkana ay runta xaqiijiyaan si loo xalliyo arrinta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo muraayada hortooda lagu kala baxo telefishinada la soo wada fariisto dawladdu ay tiraahdo qaladka ayaynu qalbi dhagax ka galnay la raali geliyo asagana uu sheego sida dambiga looga galay adiga sidee kula muuqata arrinta horta waxaan dhihi lahaa horta runta way fiican tahay in lisor fariisto oo runta liisu sheego laakiin aniga waxaan maskaxdayda gelaynin oo la yaabay waxay tahay sanadkii hadda dhaweyta Soomaaliya intaasoo 100 qof ku dhimatay waa gartay haye qalbi dhagax waa la xiray ama dawladda ha soo siiday qabiil ahaan ha loo soo siiday waa gartay laakiin aniga midaan la yaabay qalbi dhagax madaxweyne maahan ra'iisul wasaare maahan nin la dilay oo hadda jirkiisii nabarra iyo xanuun ka muuqda maahan waa nin suud qabo oo baashaalayo waxba ka maqneen aniga marka waan bayaabanahayba shicibkana waxaan u sheegayaa ama ha ogolaado ama yuuna ogolaanan hadalkiisa inaanan la faragashanin isagii dawladda aanan la dhexgelin shicibka horta waa inta badan waa gardaran yihiin labada qof haday isdagaalaan horta meesha madaxweyne waa hadda farmaajo ma ahan horta waa yahay shacabku waa ii dambeynayaan arrinta importantiga ayaanu dhammaystiraynaa oo muhiim noo ah waxaa tiri in runta la sheego waa soo dhaweynayaa oo Cabdikariin Muusena uu runtiisa caddeeyo oo yiraahdo anigoo qalbi dhagax dambigaas laga galay farmaajo iyo dawladdiisuna ay yiraahdaan anagoo dawladdii federaalka ah dambigaasi ayaanu ka galnay Cabdikariin Muuse si arrinta loo qaboojiyo adigu waad ogolaatay marka yaad isleedahay labada dhinac haddii ay runta sheegaan dawladda ama shacabka Soomaaliyeed way ku qanci karayaan horta aniga hadda waxaan dhihi lahaa horta dawladda Soomaaliya ka taqayso waxa madaxka ee farmaajo iyo khayra Soomaha aadiyad farmaajo iyo khayra horta ninkan qalbi dhagax la leeyahay sooma nabad qabo horta shicibka wax weyn baa ka qaldan haye meel walba ay joogaan waxa ka qaldan 10 baa Itoobiya loo dhoofin jiray wala horta aad ii fahan shacabka ha ku dambeeyo waa la dardaarmaysaa waana ku ogolahay waxaad igaga jawaabtaa su'aasha waxay tahay in runta la sheego oo labada dhinac dawladda iyo qalbi dhagaxba ay shacabka hor yimaadaan waxaan ku yiri sideed u aragtaa oo la yiraahdo anaguna qalad baan qalbi dhagax ka galnay qalbi dhagaxna uu yiraahdo dawladdu qaladkaasi iga gashay maxay kula muuqataa marka hore taa ii sheeg shacabka ku fasaxaya waari wacyi geli xor baad u tahay laakiin marka hore su'aasha jawaabteeda ma taas way saxan tahay oo labadooda inay is hor fariistaan qalbi dhagaxna dadkii xiray oo ka dambeeyay inuu sheego ama dawladda ha ku jireena ama banaanka ha joogeena haye marka inta ayaad u aragtaa adiga labadaas anigoo labada arrinba waa soo dhaweynaya meeshii lagu kulmaba laakiin waxaan aaminsanahay siday farmaajo iyo khayra ku kulmi karaan sababta dadkii uu badan yahay hadalkii Soomaalida iyo warkii loo kala geynay dadkii way badan yihiin inta waxay hadda wad aragtaa oo dawladda Kenya bilaa sharci bay ku soo dhaweysay baa la leeyahay dawladda Kenya waxaan aaminsanahay anaga bilaa sharci laanba in waqti walba la soo gali kara ma fahanti haye wax weyn oo big deal oo ku fadhida ma lahan aniga shicibka isliyan ka ayaan ku jira mana oo ii muuqata nin madaxweyne ama la soo dhaweynay kulli nin shicib oo la soo dhaweynay ila tahay ma fahanti waayahay gabadhaasi waxay tiri in la wada hadlo oo la wada fariisto shacabka Soomaaliyeedna ay daawadaan anigu waan soo dhaweynayaa tiri laakiin waxay tiri waxaad weyn uma arko Cabdikariin Muuse qalbi dhagax in dawladdu ay hor fariisato waxay cadeysay in waqtigan ayna jirin waxyaabo xaqiijin karaya ama u fududeyn kara waqtigan dawladdu inay time u hesho qalbi dhagax inay hor tagto mahadsanid qadka xiga assalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا صدوا أركتدا فضلا سؤال شحل دقيستو سي جوابت الله يسيو عبد الكريم موسى إيا الدولة الفدرال كأن رنت أي وضع الشيغان عبد الكريم ويرهدو دنبغا إيا أيا لايغا قالي دولة أي تراد الدنبغا سي أيان كقالناي لا إسرائيلي قليو ليس عفيو أذيقو سيدادو أركتا والله هذه بنسو دوينيا هاي mar haddii ay dawladdu qiranayso ama oo cabdikariin qiranayo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan diidanahay inuu gadaal intuu ka maro uu toltol kula heshiiyo Soomaalidii maanta soo banaan baxday ee soo dhaweysay Nairobi uu maadaragtay uu dhinacooga uu tido uu maadaragtay waxba yahay noqdaan diidaya maadaama cabdikariin uu yahay in halgamaya Soomaali oo dhan ka dhaxeeya min qabiil maaha marka tan odayaasha ee qabiilka wada iyaan diidanahay haday labada dhinacba ay heshiis keenaan ee Soomaalida soo fadhiistaan aad baan u soo dhaweynaya waayahay maxaa ku jaban hadda Faarax Macalin iyo odayaal ayaa wada barnaamijka ah in Cabdikariin Muuse iyo waliba madaxweynahaba la isugu geeyo magaalada Kismaayo haddii arinta qaab hoose loo galo leen wad ogtahay dawladdu waa 4.5 madaxweynaha qudhiisaba xildhibaano ayaa keenay meesha qabiil ayuu kursiga ku matalaya waa nin matalaya qabiilkiisa beesha daarood haddii marka daarood oo isfahmo oo yiraahdo hadda anagu isma jijidi karnay arinta hoos loo xaliyo maxaa ku jaban khalad weeyaan khalad weeyaan haye khalad bay tahay maxay ku tahay qabiil wax lagu ma dhameyn karo Soomaalinima dadka ka dhaxaysa haye calankaaba dadka ka dhaxeeya marka nin qabiila ma aha sida anagu warkayo waa nin shacabkiisa laga tirayo oo shacabkiisa ka afqaad qaadanayo marka inuu gadaal uu maro uu qabiil kula heshiiyo taasani waa ka soo horjeedaa waxay tiri Soomaalinimo lagu kala baxo waxaana soo dhaweynaya ay tiri wada hadal qaab Soomaalinimo u abaabulan waxayna dusha uga turtay eedayn aan gamasho lahayn odayaal oo Faarax Macalin kamid yahay oo caawa Nairobi ka wada in la heshiisiyo qaab qabiilna loo heshiisiyo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax iyo waliba Maxamed Cabdilaahi Farmaajo arintaas rajo weyn ayay ka qabaan odayaasha iyo Faarax Macalinba balse lama oga xaalku sidoo noqon doono wixii ku soo kordhana waad dhageysan doontaa laakiin ka dhiibo aragtidaada qaladka telefoonada dhageystayaasha وافان ولا فريق ما قلنا أركتي هذا يقفل با وحنا سو حرير كرا تلفون كورت هذا يلا وعندنا فكرة هذا كدي بنيسا إنقاب مدح بنان ومضى لوسو وذا هوريستاغو دولدو أي رالي جريسو عبدكرين موسى قلب نجح عبدكرين أورنت الشاغو إيو إنقاب قبيل لو وذا هالشيء صوماليي سيداد واركتان waxaan rabaa inaan turxan bixiyo inta aysan dhageystayaasha badankood aysan aragtidooda aad uga dhiiban waxaa jira dawladda federaalka gaar ahaan Nairobi caawa waxa ka cusub Faarax Macalin oo wakiil ka ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay garoonka Jomo Kenyatta kadib markii la soo dhaweynayay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax wuxuu watay laba qorshaha koowaad wuxuu ahaa in qalbi dhagax iyo waliba xildhibaanada mucaaradka aysan kulmin Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaanadii la socday waa uu ka hor istaagi waayay Faarax Macalin wayna kulmeen taa uu ku guuldareystay laakiin tan uu ku guuleystay Faarax Macalin waxay tahay odayaal u abaabulan qaab qabiil oo doonaya in Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo qalbi dhagax la heshiisiyo si hoose loo dhaqo wax alla iyo wixii qaladaada oo jiro Maxamed Cabdilaahi Farmaajona arintaasi oo ka soo garbaxo oo runta u sheego qalbi dhagax xaqiiqda oo hoos loo wada hadlo odayaasha ay labada dhinacba ay wada yimaadaan oo halka qaab daarood ahaan loo xalliyo Faarax Macalin iyo odayaal ayaa qalbi dhagax ula yimid qalbi dhagax hadda ma ogolaan aad i fahma hadda aan idila hadlayo arintaas qalbi dhagax waa diiday wuxuuna u sheegay odayaasha Nairobi ku soo dhaweeyay inuu la kulmi doono una jawaabi doono markii uu jaaliyada la hadla kadib laakiin maxaa ku xiga Nairobi waxa ku xigta Kismaayo waa qorshaha iyo wada hadalka meesha la doonayo in lagu gorfayo haddaba dhageysto in arinta Soomaalinimo lagu kala baxo oo shacabka Soomaaliyeed la soo wada hor istaago Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo halgamaa qalbi dhagax iyo arinta in qaab qabiil loo xalliyo oo odayaasha iyo waliba siyaasiga Faarax Macalin arintooda ay hoos u dhameystaan labadaasi dhinac mideeba fudud mideeba kula wanaagsan ila wadaag fikirkaaga qadka xiga iyo dhageystaha ku jira assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal soo dhawow aragtidaada adigoo xor u ah in la kala baxo muraayada horteeda la yimaado la qanciyo shacabka runta la sheego xukuumadda farmaajo iyo waliba qalbi dhagaxna ay runta ummadda Soomaaliyeed u sheegaan kadibna dadka hortooda lagu wada heshiiyo iyo in arinta hoos loo xalliyo teeba kula wanaagsan walaal horta adiga iyo telefishinka baan ku salaamayaa walaal horta shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhamaantood meel kasta ay joogaan walaal arrintaas saaran maahan haddii la yiraahdo qabiil iyo hoos loo dhaqo waxa la duugayaa xaqiisii iyo taageeradiisii iyo maarta magaciisii waa la duugay haye waxaan ka kugu asan lahaa oo aan ka ku soo wacay oo u badnayd inaan magaca qalbi dhagaxa la joojiyo oo la yiraahdo qalbi dahab hadda ka dambeeyo loogu yeero qalbi dahab ma banaana waxa banaan inuu soo hor fadhiisto shacabka uu yiraahdo sidaan baa la ii galay dawladuna ay sheegato shacabku sidaan aan wax yeelnay waa naga xumaatay hana la cafiyo ay shacabkooda cafis weydiistaan markaas ka bacdi hadduu ka yeelo cafiska haddii uusan ka yeelina dawladdu way ku fashilantay mar ma laba ma saddex ma kaliya ma marka waxaan oran lahaa aniga fikrahantayda ma banaana odayaasha sulxa wada inay dhex galaan arrinta qalbi dhagax waxaan oran lahaa qalbi dahab waxaan oran lahaa taageerada way ku garab taagan yahay kana hadal xaqa hadaad ka hadashina waxaad waafaqi doontaa barnaamijkaaga insha Allah waan ku hagaagi doonaa waayahay dhanka kale aan hadalka u dhigno waad ogtahay dawladda uu madaxweyne ka yahay farmaajo qaab 4.5 ay ku dhisan tahay markii hore odayaal ayaa kulmay odayaashaas xildhibaanay doorteen xildhibaanadu waxa ay doorteen madaxweynuhu waxa uu doortay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu magacaabay golo wasiiro marka arintu hoos bay ka soo bilaabanaysaa haddii odayaashii Soomaaliyeed ay fariistaan oo ay u yeeraan farmaajo ay yiraahdaan annaga ayaa kursigan noogu matasha walaalow ninkan waa walaalka qalbi dhagaxa la yiraahdaa isku tolba tihiin arinta hoos loo xalliyo qalbi dhagaxna la yiraahdo nin halgamaaba tahay ummadda taageera ka haysata laakiin odayaasha iyo taageeruhu waa labo odayaashu waa odayaashii lagu abtirsanayay taageeriduna waa midda guud marka arinta dhaqan Soomaali kama miirnee qaab dhaqan oo hoose hadii loo xalliyo maxaa ku jaban walaal waxa ku jaban odayaasha dhaqanku uma dooranin baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha ay soo doorteen looma dooranin dadka inuu cuno hilibkooda iyo dhiigooda inuu cuno odagu markii shalay qalbi dhagax uu tagay shalay waa laga diiday waxa lagu yiri qalbi dhagax in Ethiopia ka jeclaysiinayna maanta markii Ethiopia ay soo sharaftay ahayd qalbi dhagaxna inuu dhiigiisa cuno oo hilibkiisa cuno caruurtiisana dilo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed uu sharfay oo caruurtiisii ka farxiyay waxaan leenahay walaal taasa ayaa odagana qanacin karta waxa way maanta shalay haduu ka oohiyay ilmihii qalbi dahab maantana ay ka farxiyay gabre mar ninka la sheegay Abiy Ahmed taas ayaa odayaasha ku filan odagu marka haduu u doortay ninka la yiraahdo farmaajo u doortay inuu dadka cuno ma ka yeelin anaka taageerayaal oo shacab ayaan ka yeelin marka odayaashu waxay dhaqan u leeyihiin qofka dhiigisa inay doonaan maahan qofka dhiigisa inay geeyaan uma lahayn shalay ayaa loo diiday marka farmaajo inta ugu tageen marka maanta sidee ku oran kartaa farmaajo sulx kugu geynayna marka mana u yeeli doono mana ka aqbali doono mana laga aqbali doono insha Allah haween halkii wuxuu qaadan doonaa go'aankiisa ku socda hadda qalbi dhagax shalay ayaa odayaasha laga diiday hadal codsi ah oo ay madaxweynaha ula tageen waana sax madaxweynaha waxa loogu tagay magaalada Muqdisho bishii August 2017 odayaashu 3 maalin ay farmaajo bariyeen war farmaajo ninkan Ethiopia ha u dhiibin odayaashii oo u fadhiya madaxtooyada ayaa idil xusuusinayay wuxuu aaday xeebta Liido halkaas oo kubad ku ciyaaray odayaashii sugaya ayuu farmaajo kubad u aaday xeebta Liido sida darteed dhageystu wuxuu yiri miyaan la xasuusan maalintii Muqdisho lagu sugayo August 2017 farmaajo kadibna uu xeebta Liido kubad iyo baashaal u aaday wuxuuna yiri suurtagal maaha oday shalay uu farmaajo xumeeyay maanta laga yeeli maayo qalbi dhagax inuu arintiisa sulx ka dhigo waa maasan yahay dhageystaasi qof kastana aragtidiisa xorba u yahay waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan dhageystayaasha kuwada nasiibka u yeesha in ay telefoonka haleelaan waa ogahay dadka Soomaaliyeed telefoonku ciriiribo idinku yahay dulqaata waxaan idin ballan qaadaynaa waqtigiina hadduu idin saamaxo in hadduu alla idmo si sharaf iyo qiimo ku dheehan tahay aan idinkaga dhageysanayo aragtidiina idinkoo xor u ah marka dulqaata telefoonku waa hal waqtiguna aad buu u yar yahay assalaamu calaykum وعليكم السلام
walaal soo dhawow aragtidaada arrintan hadda miiska saaran oo aynu falanqaynayno oo ah in Cabdikariin Muuse iyo Farmaajo dadka hortooda lagu kala baxo oo Farmaajona uu yimaado telefishinka cadeeyo qaladkii uu qalbi dhagax ka galay qalbi dhagaxna uu cadeeyo dambiga dawladda ay ka gashay iyo in arrinta qaab qabiil loo galo oo hadda waa dad walaalaha qalbi dhagax iyo Farmaajo arrinta hoos loo xaliyo labadaasi sideed u aragtaa وني هرتو السلام يا عبد الله بالوال وادي ادو السلام يا قلبي دغا حرت الهي مهديس والحمد لله رب العالمين وحو قال افلي باح الهي انو كسو ساري لكن انا ارماس laga hadlayo leeyahay qalbi dhagax iyo Farmaajo la isdhac dhigayo oo dhan baa runtii iyagu muuqaba soo ninkan ilaahay baa ka soo badbaadiyay meeshii shakhsi afli baax galay oo ahaa laakiin Farmaajo iyo qalbi dhagax in la isdhinac dhigo aniga wallahi arrintaas ma arko ma qabo waa ii sheegi doontaa sidaad ku diidan tahay labada magac ee la isdhinac dhigo adiga ii sheegi doona laakiin arrinta ah in la xaliyo waad ogtahay qalbi dhagax bishii August 2017 baa Muqdisho isagoo jeebadaysan laga kaxeeyay odayaasha beesha ogaadeen oo ka dhashay qalbi dhagax waa Farmaajo u tagay bishii 8aad 2017 Farmaajo kuraasto uga istaagay xeebta liido kubad isaga aaday ninkii odaga ah Itoobiya loo gacan galiyay ilaahay amarkii Itoobiyadii baa soo daysay marka hadduu shir jaraa'id qabto dawladda ceeb iyo lama arag baa ku dhacaysa marka in arrinta la qaboojiyo oo aan la ceeboobin dawladdiina aan la ceebayn oo arrinta qaab qabiil loo galo oo la isfahamsiyo la yiraahdo idinka isla dhashay dalka ninka waa ninkii hogaaminayay ninkaana waa nin halgamaa oo taageero shacab haysta marka in arrinta hoos loo xaliyo iyo in shacabka hortiisa lagu kala baxo adigu xalkeed midee xal u aragtaa waxaan ku sheegayaa barnaamijkan caawa qalbi dhagax inuu dhageysanayo waa aragtida shacabka ayaan u ururinayaa oo aan ugu talagalay in qalbi dhagax labada maalmood ay nagu soo aadan waxaad maqli doontaan hadallo kala duwan baad maqli doontaan idinka wax arki doona wixii la sugaaba qalbi dhagax Nairobi uu joogaa bulshadu la hadli doona arrintana wali ruucleen baa socota marka aragtidaadan u soo noqonayaaye in la isdhinac dhigamo wanaagsanaad tiri waad ii sheegi doontaa taa meel ii dhig in marka arrinta qaab hoose loo xaliyo iyo in arrinta runta ummadda loo sheego dadka la hor yimaado teeba xalka ku jira baad isleedahay أنا ما أكو حاصل يعني الناس كبعاد يكون هدي فرباجة وحكوا أغيريو برنامج صاري أنا حال ما يلعب بالغشاء مثل كان أقول فرباجة ورئيسنا يعني ولا ودي قلبنا حديث سكون وكانت سوى لها وإذا عاد بي بسوي ورئيسنا لكن هذا إنه عصاي أنا قلبنا حشرت راي رقبته فرماجو isagoo leh baan arkay qalad arrinta qalbi dhagax yaanu marka wadanka isaga xukumo laakiin ma wuxuu ka waday warbaan ka inuu oo saas baa laga baxay xogta ogay ay anigu wax loo hayo barnaamijka ka keeno inta san qaba qabiil iyo waxa hoose iyo waxa wayahay waxaan rabaa dadkeena ka jaahil bixiyo barnaamijka madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaalida intooda badan ma fahamsano anagu laakiin xog dheeri ayaan u leenahay Soomaaliyeed mid ogaada hadii golaha shacabku uu go'aan gaaro baarlamaanka federaalka haday go'aan gaaraan waxa qasaba madaxweynuhu inuu saxiixo aan ku celiyo haday golaha shacabka ay go'aan gaaraan waxa qasaba madaxweynuhu inuu saxiixo tusaale shirkadda DP World ayaa Soomaaliya laga mamnuucay baarlamaanka way isku raaceen cod baa loo qaaday baarlamaanka waa diideen waxa qasaba oo sharcigaas wuxuu hirgalayaa hadduu madaxweynuhu saxiixo hadda wadi fahamtay Soomaa qalbi dhagax baarlamaanka Soomaaliya ka dhidhiyay Farmaajona ma saxiixin aadi fahma waa sax dhageystahaasi laanta afka Soomaaliga ee BBC da maqal iyo muuqaal su'aal la weydiiyay wuxuu yiri baarlamaankan raacsanahay oo aniga waa ka fikrad duwanaha buu yiri Qayre iyo saaxiibadii golaha wasiirada waa ka fikrad duwanaha uu yiri baarlamaankan raacsana laakiin sheekada meesha iska qabaladahay waa xaqiiqo warbaahintu ay ku iftiiminayso warqadda taala xafiiska madaxweynaha ee ku qoran qalbi dhagax sharci darra loo xiray ee labada jeer gudiyo loo xil saaray lix biloodna guddi walba la yiri 6 bilood buu shaqeynayaa maxaa warqadaasi madaxweynuhu u saxiixi waayay maxaa dhacay oo shirkadda DP World madaxweynuhu u saxiixi waayay sidaa darteed haddaad maqashaan madaxweynaha oo leh baarlamaankan taageersanahay waxaad ogaataan warqadda taala xafiiska madaxweynaha ee baarlamaanka ay cod dheer ku yiraahdeen qalbi dhagax dambiila maaha muxuu madaxweynuhu saxiixi waayay hadduu saxiixi lahaa
golaha wasiirada ee ku tilmaamay qalbi dhagax inuu argagixiyey yahay waxaa qasab ku noqon lahayd inay degdeg raaligelin uga bixiyaan waxaa lagu qasbi lahaa golaha wasiirada xukuumadda xasan cali khayre inay degdeg u yiraahdaan qalad baan ka galnay cabdikariin muuse qalbi dhagax marka sheekadu meesha iska qabanla'dahay waa madaxweynaha oo aan saxiixin hadalkii ka soo baxay baarlamaanka hadday baarlamaanku hadlaan madaxweynuhuna uu saxiixi waayo sharcigaasi ma hirgalaayo waad fahanteen soo maaha marka ogaada oo ha isku qaldina marka aad maqashaan baarlamaankii go'aan uu gaaray madaxweynuhu waa ku raacay waxaa qasaba in warqadda la saxiixo maanta haddii warqaddaas la saxiixi lahaa oo baarlamaanku markay yidhaahdaan cabdikariin dembi ma laha guddi baa loo xil saaray waad ogtihiin guddigii baa soo laabtay wuxuu yidhi qalbi dhagax dembi ma laha guddi kalea loo xil saaray arrintii waa la dugduugay warqadiioo qoranna xafiiska madaxweynahay taallaa maanta waxaa lagu baraarugay farmaajo warqadii baarlamaanka ee qalbi dhagax hortaagan oo aan ilaa weli aan saxiixin islamarkaana bulshada soomaaliyeed ay dhegaysteen haddaba iga qora haddaad baarlamaanka go'aan ka maqashaan madaxweynahoo saxiixin sharcigaasi ma hirgalaayo sidaa darteed farmaajo waxa uu saxiixi waayey warqadii caddaynaysay cabdikariin muuse inuu dembile yahay iyo inuusan ahayn marka waxba ma soo kordhinayso inuu madaxweynuhu yidhaahdo baarlamaankaa raacsanaha warqadina la saxiixi waayo ugu dambayn shacabka ku dhegaysanaya arrinta qalbi dhagax ku murmay waqtigan waxaa tiri in runta lagu kala baxo ayaa wanaagsan dad baa arrintaasi waxay leeyihiin cabdikariin muuse iyo farmaajo laysma dhinac dhigi karo arrintaas ayaa la dhihin madaxweynaha ayaa la ceebayn dowladda ayaa la ceebayn dad baa aaminsan maxaad u sheegi lahayd aniga ninkanin wuxuu ahaa maamul goboleed baa laga soo qabtay qaranka ka mid ah 6 habeen 3 habeen baa ku jiray jeel caasimadii baa la keenay 3 habeen baa guri mugdi lagu haystay diyaarad baa la saaray caasimad cadawga loo geeyey hadday nimanku taa qabiil ka dhigayaan hoosaas qabiil u geeyayaan ayagay u taala laakiin arrintaan arrin qaran baa si qaran ha looga hadlo bannaankana ha keeno wixii jira aad buu dhegeystayaashu mahadsan yahay aniga waxaan ku qancaa buu yidhi dadkana waxaan ka codsanayaa inay ku qancaan qaab sax ah in loo dhammeeyo mahadsanid qadka xiga iyo dhegeystayaha ku jira asalaamu calaykum عليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada arrinta qalbi dhagax iyo dowladda farmaajo in hoos loo xalliyo arrinta qaab qabiil loo galo odayaashu ay isku keenaan farmaajo iyo qalbi dhagax iyo arrinta in soomaalinimo lagu dhameeyo oo dadka hortooda la yimaado dowladdu ay qirato dembiga qalbi dhagax ay ka gashay qalbi dhagaxna oo wixii xaqiisa ah ummadda u sheego labadaasi teeba kula wanaagsan وريه بلوان آد بانكو سلام يا عبد الله يو ما شاء الله هرتا برنامج كادنا آد بان حيسيا أو إنتا وداودا أو دكو كوكو حرام باناها هرتا أرين فولحن بعد عضي قلب الله حوانين صوماليا وحا خير مودا يسي وشركو أحبات جرتئية وحا شر مودا يسي أو خير كوة أنا قبل شدا الصوماليا هدا أفك الصومالي وين أنكو هادلو قلب dhagax maalintii waanu ka dhidhinabay ahayd aanu maaragtay Ethiopia loo qaaday aad baan uga xumaanay laakiin wax khayrno ayay ahayd balse midaan dawladda aan u soo noqono midaan dawladda horta waxa way qalb dhagax hadda horena ugu hadlin haddana kama ay hadlayso oo dawlad run looga bartay ama bulshada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed qancin karta ma aha taas horta anagu qancin ugama baahnin midaan kale oo hadda aniga i weydiisay oo ah hoos in loo xalliyo waxaas loo xallinaya malaha Soomaali buu ka dhashay ninka la yiraahdo qalbi dhagax wixii u kacayna Soomaali weyn bay ahayd ma ahayn wax qabiil ku salaysan iyo dawlad iyo ma aysan ahayn marka waxa weeyaan waxay shacabka Soomaaliyeed ay raali ku yihiin shalay u dhidhiyay ayay noqonaysaa aniga waa ka soo horjeeda in qalbi dhagax jiiro mugdi ah farmaajo lagu la heshiisiyo shalay hadduu ka dhibinayo oo cad ugu yaalo sidaas uma uusan galeen uma uu bahdileen maaragtay cadow gacanta uma geliyeen wuxuu doona ma sameeyeen odayaasha beesha daarood marka anigu waxa aan leeyahay shalay waad ugu yihiin farmaajo waa nin beesha daarood ah waa nin fadhiyo shalay siduu u bahdilay inii bahdilay waad arkayseen odayaalo weelkii siduu u bahdilayna waad arkayseen maanta in uu idin soo ooyo oo himbeena aniga taas kuma qanacsanin hadday adinku laakiin odayaalo gaajo idin haystood rabtaan in xoogaa ladin dhiibo waad samayn kartaan laakiin anigu waxaan leeyahay fikir ahaan gabar Soomaaliyeed anoo ah
qalbi dhagax lagama yaabo shacabkiisa in uu dhinac guracan uu ka maro afkii shacabkiisa oo nimanka baarlamanka mahad salaad fiqi iyo maxay ahayd in odawaa in allaale iyo horta intii ma u dhiidhiday qalbi dhagax baarlamanka oo u dhiidhiday oo xiliyahooda dul saartay miiskana aad iyo aad allaha idin xaftiyaan leeyahay cadowgiina ka guulaystaan leeyahay waayahay marka cabdikariin muuse iyo weliba farmaajo odayaal dhaqameed bay leeyihiin waadna ogtahay soomaalidu hiddi iyo dhaqan waxay u leedahay odayaasha in la tixgeliyo haddiiba uu kursiga madaxweynuhu ku matalayo beesha daarood oo aad ogtahay ka sokow inuu yahay madaxweyne soomaaliyeed kursigiisa dad baa ku eeganaya oo dad buu ku matalaa kuraasta 4.5ka ee dowladda soomaaliya ay ku dhisan tahay marka haddii odagii soo doortay baarlamankii doortay madaxweynaha uu yiraahdo anaa kaa oday ah anaana adeer kaa ah qalbi dhagaxna lagu yiraahdo faataxan kugu kabaynaaye ina adeerow waa walaalkaa la heshii oo arrinta qaab dhaqan loo galo maxaa ku jaban walaalo faataxa hadda waaba lacagaynaa ma garata faataxada dadka disho ma fahanti faataxa waa iska dhaafaynaa ma fahanti annaga beesha daarood 4.5 run weeyaan farmaajo waxa weeye codka daarood ayuu meesha ugu fadhiyaa shacabkii kale oo Soomaaliya oo ayagana aad iyo aad u calaamad oo soo doortayna indhaha ayuu ka riday ma fahanti annaga waxa weeye odayaasheena wax kasta in ay ka fiirsadaan ayaa danta ku jirtaa hadda waa kan waa nool yahay ninkii ay islaha waa la dilahayaa ama waxba ku dhacaya ama sibuu noqonaya waa muhiimahaya maanta waa isaga irkiisa taagan oo dhahaya faarax macallin maxay ahayd ila heshiisi ma fahanti isma hubtay ishaleen ma fahanti yaraan male rag waxa weeye raggu in ay isbahdilaan ma aha ma fahanti dadkaaga ka fiiri waxa weeye farmaajo aad baan u dhaliilaynaa aad baan u cambaaraynaa odayaashanadaas soo hartay odayaashanada waa odayaashayadii waxa ay ku gooyaanna waa wax saxa laakiin waxa ka horeysa odayaasha shacabka Soomaaliyeed horta farmaajo runta hawsheeda ha qanciyo ka bacdi odayaasha iyo famil ahaan hoosta loo dhameeyo aniga fikirka aan qabo waasa Soomaali weyn ha qanciyo marka hore farmaajo inkastoo run looga baran shacabkiisana uusan qancin karin gurigiisa ma qancin karin shacab qancin waa gurigiisana ma qancin karay ilata marka waxa weeye shacabkii baa ka horeeya odayaasha shacabkii Soomaali weyn horta ha qanciyo حقرته إن ودب سمية حقرته وحو كوكعي دو محاي هاي كعلنك يعيد وكوكعي إن أي خلق هاي محاي هاي فرماجة مركا كبعد أضياشة قال أهان هلا وضع الشيء فاتحان هلا كلاقات أنا تاسان لا يعني فكر أهان ويهي waxay tiri qaabka loo dhiga hadalka farmaajo waxay tiri hore run loogama baran hadii even uu hadda odayaasha la balamayana waxay tiri marka hore shacabka la hormariyo shacabka Soomaaliyeedna Cabdikariin Muuse iyo farmaajo meeshii ku heshiinayaan waa inay marqaati ka noqdaan waa mahadsan tahay gabadha si aragtideeda xorbay u ahayd waxay qayb ka tahay dhageystayaasha dooda telefoonka uga qayb galaya dhageystayaal doodaha aynu arrimaha siyaasadda uga hadalno waa waana laba shirkadood oo midna maalintii dooda ay soo bandhigto aragtida fog ayaa loogu magac daray aragtida fog iyo tan ka daboolan waa arrimaha xasaasiga ah ee ka jira Soomaaliya sida darteed idaacadda duhurnimo oo soo gasha saacadu marka ay tahay labada duhurnimo saacada South Africa iyo guud ahaanba saacadaha dalalka Europe marka UK laga reebo labada duhurnimo markay saacadu tahay waxa soo gala idaacadda Koonfur Africa radio la yiraahdo oo barito ama xilligan ama labada duhurnimo saacadu markay soo gaadho maanta Khamiisa dood aad u culus ayaa jirta ha u dayma la'aan oo ku biira channelka Koonfur Africa radio waxaad ka dhageysan doontaan aragti idinka daboolan maalin walba saacadu markay soo gaadho labada duhurnimo ayaad kala socon kartaan Koonfur Africa radio arrimo aad u kulul dadka aan South Africa ku noolayna Koonfur Africa radio channel ay kala socdaan dhinaca YouTube-ka doodu labada duhurnimo ay xiisa gaar leedahay balse xilligan inta ayaan ku soo gabagabeynaya aragtida dadweynaha iyo barnaamijkii fikirka dhageystaha oo ku soo bandhignay farmaajo iyo qalbi dhagax in si hoose loo heshiisiyo sida ay u arkaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaad maqasheen xog sheegaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Faarax Macallin u soo xil saaray in aysan xiriir yeelan xildhibaanada mucaaradka ku ah Farmaajo iyo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo caawa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya Faarax Macallin oo ku fashilmay inuu hor istaago xildhibaanada
farmaajo mucaaradka ku ah oo runtii siyaasad ahaan aanan isfahamsanayn uu ka mid yahay axmed macalin fiqi sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhagaysateen odayaal iyo siyaasiyiin uu faarax macalin ku jiro oo doonaya in qaab hoose loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya farmaajo iyo qayre calaashaan qaab qabiil hoos loo xaliyo qalbi dhagax waa diiday shacabka Soomaaliyeed baan u soo bandhigay waxa nala soo xiriiray dhageystayaal fara badan waxay dhammaantoodba sheegeen inay tahay wax qalada in hoos loo xaliyo arrinta Cabdikariin Muuse iyo waliba Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa jirta marka hal dhageyste oo na soo wacday iyadoo oo joogta magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii waxay tiri qalbi dhagax iyo farmaajo in la isdhinac dhigo ayaanba ceeb u arkaabay tiri waxay liiday Cabdikariin Muuse qalbi dhagax waxayna tiri uma qalmo in madaxweynaha waqti looga lumiyo gabadhaasi Islii nagala soo xiriirtay ayaa ahayd gabar ka fikrad duwan dhageystayaasheena soo wacay waxayna uga duwnayd gabadhaasi fikrad waxay aaminsanayd qalbi dhagax iyo farmaajo in la isdhinac dhigi karin waxay tiri in waqtiga iyo magaca lagu mashquula ma aha waxay sheegtay sidoo kale in dad fara badan oo ka qiimo badan Cabdikariin Muuse oo in waqti la geliyo haboon tahay dawladda Soomaaliyeed uma dhunti doonto bay tiri qalbi dhagax iyo waliba arrimihiisa waa gabadha kaliya ee ka fikrad duuneed shacabka inta kale waxay isku raaceen inay qalad tahay in qaab qabiil loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya ama gafka loo geystay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax khilaaf maaha waa gafkaasi qalbi dhagax waa diiday wuxuu yiri Soomaalidii shalay iyo mudaharaaday ayaan hortooda istaagi doona runtan sheegaya waa laga diiday Faarax Macalin iyo odayaasha marka waxa suurtagala Nairobi waxa ku xigta Kismaayo meeshuu tagayo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax Kismaayo tagi doona waxaan kaloon caawa sheegay ummadda Soomaaliyeedna aan u soo xaqiijiyay Cabdikariin flight-ka uu ka soo raacay Addis Ababa ku yimid Nairobi passport ama documenti oo watay waxa ka jirta warqad ay ku qoran tahay inuu fasax yahay qalbi dhagax wuxuu ahaa siyaasigii ugu horeeyay oo bila passport diida passportka Ethiopia warninka qiimuhu leeyahay bal arka ninkan qalbi dhagax leeyahay bal qiimaha uu leeyahay arag wuxuu diiday passport diblomaatiga oo loogu talagalo gaar ahaa oo shaqaalaha Ethiopia loogu talagalay waxa siiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa ku diiday wuxuu yiri passport Ethiopiana ilaa arinta oo nalaf laga xalinayo ma qaadanayo warqadu wata marka Nairobi wuxuu ka soo degay isagoo warqad wata warqadaasi ayuuna dokumenti ahaan u isticmaalayay dadkii marka ku xaminayay in qalbi dhagax uu passport Ethiopiana wata caawa barnaamijkan ku soo bandhigay dadka ina soo wacay ku waqti ka dhacay waxaan leeyahay dhammaantiin hortooda mahadsantihiin barnaamijkan mid xiga waxaad maqli doontaan isla maanta oo Khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 5 bisha 7 2018 raadiyaha Koonfur Afrika ee channelka Koonfur Africa Radio ayaad ka dhageysan doontaan barnaamij kulul ku biir marka doodatan xigta waxay ka bixi doontaa channelka Koonfur Africa Radio oo caawa ama xilligan ama waqti walba ku Koonfur Africa Radio ayaanu ka daadihin doonaa marka insha Allah waxa inoo balana annagoo dhamaanteedba ku biirno channelkaasi Koonfur Africa Radio si aad ula socotaan doodatan xigta inta ka horeysana waa Cabdilaahi Balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo habeen wanaagsan manga binatahay